kulankan oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka soconaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose loogana hadlaya ammaanka dhinaca badqabka xeebaha maamulka Jubbaland ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta kala socotay qaar ka mid ah wasaaradaha maamul goboleedka Jubbaland aqoon-yahano ku xil dheer dhinaca badda iyo sidoo kale xubno ka socday urur goboleedka IGAD oo qaabilsan dhinaca ilaalinta xeebaha oo Jubbaland ka caawinaya sidii loo sameyn lahaa goobo laga ilaaliyo xeebaha maamulka Jubbaland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoona intii uu kulankan soconayay looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen in laga hortago kalluumaysiga sida sharci darrada looga sameynayo xeebaha maamulka Jubbaland ayna ka sameynayaan kalluumaysato dalka aanan u dhalanin iyo sidoo kale kuwa qashinka sunta ku daadiya xeebaha maamul goboleedka Jubbaland waxaana sidoo kale qodobadii laga hadlay ka mid ahaa in burcad badeeda Soomaalida ee ka qowlaysato xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka Jubbaland laga ilaaliyo in aysan ku soo biirin xeebaha maamulka Jubbaland waxaana dhinacyadii kulankan yeeshay isla gorfeeyeen in la sameeyo ilaa iyo 5 goobood oo laga ilaalin doono xeebaha maamul goboleedka Jubbaland waxaana ugu horeyn arrimahaasi ka hadlay aqoon-yahan Jaale Goodir oo ku xil dheer dhinaca badda kana mid ahaa aqoon-yahanadii kulanka ka soo qayb galaya waxaanu ku saabsanaa badda Jubbaland ayuu ku saabsanaa runtii waxa ka soo baxay go'aamo aad u dhaxalgal ah hadii la hirgeliyo oo wax weyn laga qaban karo badda Jubbaland waxa ay leedahay 3 cadow waxa weeye waa nimanka kan dhigta badda isbaarada oo maraakiibta afduuba cadowna waxa weeye waa kuwa kalluunka bila sharci darrada ah ee shacabka Soomaaliyeed ka gaajaysan yahay hada jeer badda kala baxa kuwana waxa weeye waa kuwa qashinka ku daadiya waxa laga wada hadlayay inta oo laga doodayay sidii saddexda masuubo xal loogu heli lahaa go'aamo aad u dhaxalgalana waa laga soo saaray waxaan aad u hambalyeynaya dhalinyarada aqoonta badnayd wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradii kale ee naga soo qayb galay shirka ka saddex bari socday shir aad u kulul buu ahaa qodobo aad u wanaagsan oo dhaxalgalana way ka soo baxeen waxaan hadda u daba joognaa in la helo qodobadaasi sidii ay u hirgeli lahaayeen iyo sidii talaabo loo qaadi lahaa oo ummadda Jubbaland ay u gaari lahayd inay xeebtooda ay u noqoto mid safety ah mid u nabad ah oo ay ka dabtaaneen khayraadkooda ay kala soo baxaan khayraad maxaan la soo baxaa hadana nabadgelyo bahayn ka bacdi markii waxaan fikiri karaa markaan nabadgelyada xeebteeda gacanta ku dhigo ayaan fikiri karaa ka bacdina aan kala soo bixi karaa kalluun khayraadka ku jira badda wuu ka badan yahay oo ka fiican yahay khayraadka badda inoo daasan dadkeenana waxa laga yaabaa maalin kasta in nafaqa darro iyo gaajo haysta waxaan u rajaynayaa inay soo baxdo guul aan marna dhamaanayn go'aan fiican laga gaaray ugu dambeyn wasiirka wasaaradda kalluumaysiga maamul goboleedka Jubbaland Ibraahim Maxamed Baajuun oo kulanka ka hadlaya ayaa sheegay in uu muhiim ahaa kulankan isla markaasina la aasaasi doono goobo dhowr ah oo laga ilaalin doono xeebaha maamulka Jubbaland waxaan maanta farxad noo ah inaan noo soo gabagaboobay shirka ayaamaan socday koox ka socota IGAD oo qaabilsan coastal line ama maritime Jubbaland ama ilaalada xeebaha inay naga caawiyaan sida loo ilaalin lahaa xeebaha Soomaaliya haday noqon lahayd burcad badeed haday noqon lahayd maraakiibta kalluunka xada ama dawladda sunta lagu shubo badda shirkaas inuu ka soo baxay communique aad faa'iido u leh reer Jubbaland haday noqon xaga ilaalada xeebaha waxyaalo badan isku afgar waxyaalahaas ay ka mid yihiin in sida Kismaayo Kooyama kuda buuriga walaaskambo laga dhigo stationno lagu ilaaliyo xeebaha baddeena Jubbaland shirkan maanta uu la soo gabagaboobay guulna ku dhamaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa hadda kadib in aan u xiran doono ama aan u istaagi doono inaan shaqadaas qabano xeebteena ka ilaalsano cadowga ku soo duulaya ama kalluumaysiga ama sunta lagu duugayo ama burcad badeed waan ku guuleysan maanta insha Allah taala qolada naga yimaad dibadda ama IGAD waa ku mahadsanyihiin si kastaba ha ahaatee kulankan looga hadlayay ilaalinta xeebaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa hadii uu dhaqan galo waxa uu wax badan ka tari doonaa dhinaca ilaalinta xeebaha oo inta badan u nugleed in kalluumaysato si sharci darro ah ay uga kalluumaystaan xeebaha Jubbaland iyo sidoo kale maraakiib aan la garanayn oo mararka qaarkood qashin ku daadiya xeebaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka Jubbaland Maxamed Qaasim Cali Waxar
TV-ga caalamiga Saab magaalada Kismaayo.